waxa idiin muuqda waa ultrasound ama kombiyuutar. Kombiyuutarkaas waxaa lagu ogaadaa waxyaabaha uurku jirta, xubnaha uurku jirta sida beerka, sida kaliyaha. waxaa kaloo lagu ogaadaa inuu hooyada uur kale cunugii intuu jiro, inta bilood uu jiro, marka uu dhalanayo. waxaas dhan lagu ogaadaa. waxaa lagu ogaadaa haddii dheecaan jirka galo oo qofka jilibkiisa dheecaan galo ama meel kale jirkiisa kamid dheecaan galo, kombiyuutar ultrasound la saaraa. waxa idiin muuqda madow waa shaashadii. waxaan waa butano la taabanayo ama badhano la taabanayo marka la isticmaalayo. midkaas buuran waxaa loo yaqaanaa probe, waa midka qofka la saaro. midkaas kaloo taagan waxaa loo yaqaan transvaginal, waxaa loo isticmaala makaanka dumarka si loo soo ogaado burooyinka iyo uurka cunuga uu leeyahay iyo haddii dilan jiro. waxaas dhan lagu ogaadaa. midkan kale waa nuuc kale oo ka mid ah asna ultrasoundka, oo nuucyadiisa waa kala duwan yihiin, waa kala qaalisan yihiin. midba waa nuuc. marka midkaana waa sidoo kale waxaas furkaas guduudan waxaa loo yaqaanaa gel ku jiro oo ah wax lagu shubayo qofka korkiisa markii la saarayo ultrasoundka. marka nuucyadiisu waana kala qaalisan yihiin, waana kala tayo fiican yihiin. ushaas dheer waa idiin sheegay, waxaa loo yaqaanaa transvaginal. cashirkeenu wuxuu ku saabsan yahay uurku jirta, maamada uur kale sida loo arko. maamo uurle markii la saaro kombiyuutar maxaa la arkaa, goormaa la arkaa? uurka waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood. 3da qayb waxay kala yihiin first trimester pregnancy oo ah 3 bilood ugu horeyda. first trimester pregnancy la yiraahdaa. 3 bilood oo ku xigta waxaa loo yaqaanaa second trimester pregnancy. 3 kale oo ku xigtana waxaa loo yaqaanaa third trimester pregnancy. first trimester pregnancy ayaa maanta qaadanaynaa. wuxuu ku kooban yahay waxaa loo yaqaanaa gestational sac, yolk sac, embryo ama fetus and presence of cardiac activity ayuu ka kooban yahay. 3daas wax ayuu ka kooban yahay. ugu horeyda oo laga hadlaayo hooyo uur leh, waxa ugu horeeya oo kombiyuutarka lagu arki doono ama ultrasoundka lagu arki doono oo lagu arkayo hooyada minkeeda markay uur yeelato waxaa loo yaqaanaa gestational sac. wuxuu imaanaa waqtiga ugu horeeya la arkaa hooyada markay uur yeelato ayaa kombiyuutarka lagu arkaa. waqtigaas waxaa la arki doona oo koowaad gestational sac waxaa la yidhaha oo sheegaya inay hooyadan uur leedahay oo ah wareeg lagu arki doono minka dhex. sidaan horey kugu sheegay gestational sac waxaa loo yaqaanaa waxa ugu horeeya oo kombiyuutarka lagu arko hooyada uur kale. gestational sac halkan wuxuu ku leeyahay early sign of pregnancy, waa calaamadda ugu horeyda oo la arko hooyada uur kale lagu arko. waxaa loo yaqaanaa early sign of pregnancy, waa waxa ugu horeeya oo lagu arkayo hooyada uur kale markii ultrasound la saaro ama kombiyuutar. fallaartaas meesha ay ku aadantahay waxaa loo yaqaanaa gestational sac. marka gestational sac goormaa la arkaa? waxaa la arkaa 4 asbuuc ilaa 4 asbuuc iyo bar ah waxaa la arkaa gestational sac la arkaa. maalin kasta gestational sac wuxuu sameynaa koritaankaas bardhay wuxuu korayaa 1 millimeter. marka gestational sac saas lagu qeexay. gestational sac marka leeraa maxaa la arkaa? waa calaamadda ugu horeyda la arkaa markii kombiyuutarka la saaro hooyo uur leh. marka maxaa la arkaa? waxaa la arkaa meeshaas madow oo ku dhex taala minka ayaa sheegayda inuu jiro inay uur leedahay hooyadan, oo uurkaasna uu yahay 3 bilood oo ugu horreeyay inay ku jirto ayuu sheegaa. sawirkaas waa kombiyuutar la saaray hooyo uur leh oo ku jirta 3 bilood oo ugu horreeyay uurkeeda. marka wuxuu tilmaamayaa qaybtaas madow oo godan oo madow waxay sheegaydaa hooyada uur kale inuu uurkaasi jiro uuna yahay 3 bilood oo ugu horreeyay uurkeeda. cashirkan wuxuu ku saabsan yahay yolk sac. yolk sac waxaa la arkaa asbuuca 5aad oo hooyada uur kale uurkeeda ayaa la arkaa. waa yolk sac, waa sawirka labaad oo lagu arko kombiyuutarka markii la saaro hooyada uur kale. waa wuxuu la eg yahay 5 millimeter ayuu ka yar yahay ilaa 12 millimeter meelahaas lagu qiyaasaa. marka yolk sacna waa sawir wuxuu muuqanaya sawirkan hooyada uur kale 3 bilood ugu horeyda. qaybta labaad oo la arkayo markii gestational sac waxaa ku xiga yolk sac, waa isagana 5 wiiga. gestational sacna wuxuu 4 asbuuc iyo bar, kana waa 5 asbuuc la arkaa. marka sidaasay noqonaydaa. darsigeena intaasu maanta ku egyahay. aad iyo aad umahadsantihiin. waa casharkeena. sawirkan idiin muuqda waa cunug ku jira minka hooyo. waxaa lagu arkay kombiyuutar ultrasound lagu arkay. waa cunugii oo ku jira minka hooyadiis
wuxuu ku jiraa bilihii ugu dambeeyey waqtigii uurka uu ku jiri lahaa waa u jeedin madaxiisii lugihii waa u jeedin waa minkii dhex yaala waa ultrasound sawir laga qaaday waa sawirka ultrasoundka markaad hooyada saarto sidaas ayaa waxa ku arkayda uurka asoo ku dhex jira cunugii oo ku jira bilihiisii ugu dambeeyey 9 bilood ha ahaado ama 8 bilood ha ahaado waa cunug aad u muuqda oo minka dhex yaala waxaa lagu arka kombiyuutarka ultrasoundka si fiican oo aad iyo aad u muuqata ayuu u muuqdaa sidaas ayuu casharkeenu ku sii socon doonaa.